marka raad waxay ka mid tahay xuruufta aan xaggan wax laga wareejin karin. waxay ka mid tahay xuruufta aan xaggan wax laga wareejin karin iyagoo dhanba xaggan wax laga wareejin karo kan xaggan wax laga wareejin karo. marka laakiin dhanka kale waa laga wareejin karaa. tusaale ahaan ra'di iyadaaba bilowdayba ra'du haddii ay iyadu marka ugu horeysaba tahayba tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa ra iyo miim iyo laam. ra'diiba ugu horeysaba waxaynu ku sheegnay xaggan waxba laga wareejin karaa. ra'da soo qor, miimkan halkaas soo dhig, miimka waa ku dhegsamaa markaasaa u yareeji. maxaa ku xiga laam, laamka ku dheji, laamka saasaa loo qoraa. marka wataa qaabkaasaa loo qoraya. haye marka dhexda ku jirto waxaa la soo qoray tusaale ahaan miim ka bilow. wow waxa ka mid ah kuwa waxba lagu dhejin karin. waan ka wareegayaa waxaan soo qorayaa miim. waxaan soo qorayaa miimka saasaa la qorayaa. ra' baan qorayaa, fa oo kalaan qorayaa. waxaan ku sheegnay ra'da xaggan waa lagaga dhejin karaa. waa sax waa lagaga dhejin karaa laakiin xaggan waa mamnuuc. waxaynu sameynaynaa miimkaan soo qornay waa saa u jiidayaa. ra'da waxaan yaree jiidan iyo halkaas isla mid ah. ra'dii markaasaan kusii daray halkaa kaga daraya. markaa fa baa ku xiga soo maaha. fa'da waataynu sheegnay xaggan waxba lagaga wareejin karo. markaa fa'dana goonidaasaan ka istaajinayaa. saasaan loo qorayaa. okay markay ugu dambayso waxaynu soo qaadanaynaa caynka iyo da'da iyo ra'da. waa inay ra'da ugu dambaysayaan. waxa kale ama cayn ama da'da xaggaa ka xigeen laakiin waxaa waajiba in ra'da ay ugu dambayso. waxaynu soo qaadanaynaa caynka. caynka markay ugu horeyso qaabkaasaa loo qoraa. da'dana halkaasaa laguga dhejinayaa. ra'du markay ugu dambaysona qaabkaasaa loo qorayaa. ra'dii taasaa loo qoraya. marka ra'da iyo zaad waa isla mid. waa kasii soconaynaa insha allahu tacaala. siinka iyo shiinka waa isla mid. siinka iyo shiinka waa dhibcihii unbay kala duwan yihiin. dhibcahan waa inaad u baxaafaysaa. siinku wuxuu ka mid yahay iyo shiinkuba labada xuruuf ee wax kastaba ku dhegsami karaan. maxaynu sameynaynaa markaa? tusaale ahaan waxaaynu soo qaadanaynaa siinka ugu horeeya la yidhi, ha baa ku xigto bartanka ah, miim baa ugu dambeeya. marka maxaynu sameynaynaa siinka qaabkan oo kale loo qorayaa. saa u soo qor, saa u soo jiid. saasaan saddex ilkood baa saa u samaynaysaa. isaga saasaa u jiidaysaa. ha'du markay bartanka ku jirto saasaa loo qoraysaa. okay markay miimka ugu dambeeyo oo miimka waa kusii dhejinaysaa. waa kaa. marka haddii shin yahayna 3 dhibcood sii. okay markuu bartanka yahay siinka waa kan dhankana waa kaga dhegsami karaa, dhankana waa laga dhejin karaa. waxaanu sameynaynaa tusaale ahaan waxaan soo qorayaa cayn iyo siin iyo laam oo kale soo qoraya. siinku waa inuu bartanka yahay. caynku waa ka ugu horeeya, laamkuna waa ka ugu dambeeya. bartanka waa inuu siin yahay. saas un baa ka doonayaan. caynkan soo qoraya. siinka 3 ilkood, 3 ilkood waa inaad qortaa. haye waan qorayaa 1 2 3 waa isla leeg saas aad qoraysaa. maxaa xiga? kan laamkana xiga soo maaha. laamkiina saabo laamka xogaa waa hoos loo yara dhigaa. marka waa u tagi doonaa markaas marka qaabku yahay. siinka markuu ugu dambeeyo xaggan waxba laga dhejin karaa. xaggan waxba laga dhejin karaa. okay 6 xaraf yeen xaggan ka xigin. haddii xaggan 6 xaraf ka xigaan iyaga 6 xaraf baa waxay mamnuuc ka ahayd inaan xuruufaha dhanka ka xiga aan lagu dari karin. siinka ma hab mashaakilkiis laakiinse iyaga weeyaan 6 xaraf iyaga waxa waajib ah inaan geeskan wax laga darin. markaas siinku gooni ka istaagaya sida aynu halkan ku aragno. gooni buu istaagay. sababtu waa maxay? alif baa ka mid ah xuruufihii 6 saas uu istaagay. ka inagu xaraf siinka ku dhegsami karaa ayaynu raadinaynaa. marka waxaan qoraynaa fa baynu qoraynaa. waxaan qoraynaa jim baynu qoraynaa. jim siinna waa qoraynaa. okay waxaanu sameynaynaa fa'da marka ugu horeysa saasaa loo qorayaa. jimka waa lagu dhexda ku jira saasaa loo qori jiray. siinka 3 ilkood baa inta loo taago baa caaradaas oo kale la dhigaya. madaxan yar oo kale baa loo sameynayaa.
يعني هو سيداس يرى ما يرى ترتريا يعني هو حويا فاء يجي مثل ما شاف قرميها اوكي فاء وفاء يجيم جيمك يسين أسقط على قرية marka siinka iyo shiinkuna waa isla mid isku qaab baa loo qorayaa dhibcaha unbaa kala duwan yihiin saadka iyo daadkuna waa la mid marka saadka tusaale ahaan waxaa la yidhi waxaa laguu dhiibay 3 xaraf midi waa saadku marka ugu horeeyo iyo kha'da oo dhexda ku jirta iyo ra'du markay ugu dambayso marka sidan oo kale waa inaad usoo qortaa saadkii maxaan sameynayaa intaan saas kale usoo bilaabo waan ilig yar oo kale kusii dartaa aan sameeyo saadkii saasaan ilig yaraan wayna soo taagan maxaa ku xiga kha baa ku xigta marka kha'dana markay barta ku jirto saas loo qoriyo lagu sii dariyo ra'duna waa ku sii daraysaa marka waa sakhrun ma sakhrun qaabkaas loo qoriyo markuu saadku dhexda ku jiro dhankana wax baa kaga dhigsan karaa dhankana wax baa laga dhigin karaa okay waxaan soo qorayaa ba'da waxaan soo qorayaa saadka oo dhexda ku jira laan baa soo qorayaa qaabkee la isugu dhijinaya ba'da waa soo barnay qaabkaas la oran jiray markay ugu horeyso saadka inta sidaa la yiraahdo bayli geera loo taagaya laamkana saas lagu sii daraya okay markay ugu dambayso waxaan soo qaadanayaa qaaf baan soo qaadanayaa fa baan ku xijinayaa saad baa ugu dambaysiinaya qaabkee isugu dhijinaya fa'di baan saa u soo qorayaa qaafkii baan ku xijinayaa saas qaafka lagu sii daraa saadka sidaasaan dhahayaa saasaan oo kale baanu isticmaalayaa marka iyadana saadka xagga waxa laga dhijin karaa marka saddexdaasba halkaasaan kaga sii tagayaa saadka iyo daadku waa isla mid baan waa isku mid waxa kala duwana daada waatan daadu markay ugu horeyso tusaale ahaan daadu markay ugu horeyso waa kan xagga waa laga dhijin karaa wax tan xaggan waa laga dhijin karaa xaggana waxa laga dhijin karaa kan xaggan waxa laga dhijin karaa xaggana de isaga ugu dambeeya okay ta baan qorayaa ba baan ku xijinayaa laan baan ku xijinayaa marka maxaan sameynayaa taada saa soo qor ilig yar ha u taagin wax ilig ha u taagin ba'da ilig yar lahayd markay dhexda ku jirto ba'du markay dhexda ku jirto hal ilig baa loo taagaa dhibic baa hoosta laga dhigaa laamka markaas saas lagu sii darayaa marka tan saa ugu taag balkeedii saas loo qorayaa okay markay ugu dhaxaysana waxaan soo qorayaa tusaalahan fa baa soo qorayaa waxaan soo qorayaa ta baan soo qorayaa waxaan ra baan soo qorayaa marka fa'da saas soo dheh oo markay ugu horeyso qaabkaas loo qorjay fa'da ta'da markay waa ku sii daraysaa labaatan sheegay xaggana waxa laga dhijin karaa xaggana waxa laga dhijin karaa ra'dana ku dhiji waxa ka mid tahay xuruufta waxa lagu dhijin karo marka ra'da isagana xagga ku dhiji oo ra'du miyaan xagga ra'da miyaan awal laga jirin may ra'du waxa ka mid tahay waxaan idin sheegay xaggan in wax laga dhijin karo laakiin meesha diidanta waa dhankan hadda xaraf adii kale oo ka dambeeyay hadduu iman lahaa gooni buu ka istaagi lahaa marka saas weeyaan okay marka ay tahay ba oo ba saa loo qorayo ta'dana saa loo qorayo marka lagu yahay isku dhij ba'da saa soo qor iyada ugu horeysa ta'dina saas ugu dambeysay waa ku dhigsan kartaa wax kasta marka qaabka weeyaan waana sida marka kaga muuqato okay ta'da iyo dha'da waa isla mid marka labadanba waa isla mid caynka iyo qoynka baxay caynka marka ugu horeeyo waxa weeyaan qaabkaas loo qorayaa xaggan waxa laga dhijin karaa kan xaggan waa laga dhijin karaa xaggan waa laga dhijin karaa laakiin madaxiisa fiiri qaabka loo ekeysiyo markuu bartanka iyo qaabkaas loo ekeysiyo markuu ugu dambeeyana xaggan waxa waa laga dhijin karaa laakiin madaxiisu san ma madaxiisu waa saas oo kale sa halkan oo kale weeyaan laakiin halka yar baa saas la hayaa ka buugan marka qaarkood oo ka yara baxbaxaya okay aan sameeyno cayn okay caynka waxaan ku insha Allah qaadanaynaa 10 kan xiga dama 10 daqiiqo kaliya inoo harsan tahay wax yar ad iyo bas salaamaya wassalaamu calaykum.